aamuska waxa lagu tilmaamaa inuu yahay dardaarankii boqorada. waxa la tilmaamaa 4 boqor oo soo maray adduunka oo lagu tilmaamay inay kamid ahaayeen dadkii ugu xikmadda badnaa, ugu caqliga badnaa, inay yiraahdeen 4 eray oo moodo sidii leeb qaansa laga ganay oo kale. boqorka koowaad wuxuu ahaa Malikur Ruum wuxuu tilmaamay isagu afdalu cilmi al-ulamaa'i as-sukuut, cilmiga culimada inuu ugu sareeyo, ugu fadli badan yahay aamusnaantu. macnaheedu noqonayo caalimka dhabta ah waxa lagu soocaa laguna gartaa aamuska uu aamusayo markay baahi keensato. hadal badnaantu xikmad maaha, ee xikmaddu waxay tahay inaad hadasho markay tahay inaad hadasho, markayna ahaynna inaad aamusto. boqorka labaad wuxuu tilmaamay isaguna uu sheegay wuxuu ahaa Malikul Furs. wuxuu yiri idaa takallamtu bikalimatin, haddaan ku hadlo buuri kelmad, malakatni iyada yeelata ee anigu ma yeesho. macnaheedu uu noqonayo qofku markaa uu ku hadlo hadalka ayuu maxbuus noqdaa hadalka uu ku hadlay. marka hore tahay inaad ka fiirsato ood ka fikirto intaanad hadal. aamusku wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad hadalkaad oranayso aad ka fikirto. xumaan iyo samaan wuxuu yahayba, wanaag iyo dhibaato wuxuu leeyahayba, intaanad ku hadal ka hor ayay tahay inaad ka fiirsato. laakiin mar haddaad ku hadashay waxaad maxbuus noqonaysaa, hadalkaa kaa soo baxay ayaad maxbuus noqonaysaa. boqorka saddexaad wuxuu tilmaamay waa Malikul Hindi. wuxuu yiri uu tilmaamay boqorkaasi wuxuu yiri ana ala raddi ma lam aqul aqdaru minni ala raddi ma qultu. waxaan uga awood badanahay buuri inaan celiyo waxaanan oran waxaan idhi inaan celiyo. macnaheedu noqonayo hadalku intaanad oran ka hor waxaad awood u leedahay inaanad oran baad awood u leedahay. laakiin haddaad mar tiraahdo uu afkaaga ka soo baxo xayndaabkii awooddaada uu ka baxay. awood ma lihid hadalaad tiri inaad dib u liqdo. marka hore ayay tahay inaad ka fiirsato waxaad oranayso. laakiin mar haddaad tiri hadalkaa wax awoodoodu leedahay inaad dib u liqdo ood hadalkii dib u soo celisaa ma jiro. boqorka afaraad waa Malikus Siin. isaguna wuxuu tilmaamay oo yiri nadimtu cala al-kalaam walam andam cala as-sukuut. wuxuu yiri hadal waan ka murgay waanan ka qoomamooday, se laakiin aamus kamaanan murgin kamaanan qoomamoon. wuxuu tilmaamayaa hadal inuu ka qoomamooday se aanu aamus ka qoomamoon. oo waxay yidhaahdaan aamus qoomamadaad ka qoomamootay waxa ka daran hadalkaa tegay murugtaad ka murgayseed ka qoomamoonayso. inaanad oran lahayn ereygaa, inaanu ereygaa kaa soo bixi lahayn, shallayntaad ka shallaynayso ayaa ka daran aamusaad aamustay qoomamada iyo murugta aad ka murugoonayso. aamuska markaa waxa lagu tilmaamaa ay bacdu saalixiin yidhaahdeen waxaad laasimtaa aamuska laasim. waxaad ka kasbanaysaa yood ka dheefaysaa jacayl baad ka dheefaysaa. cidhib xumo waad ka ammaan helaysaa, waad ka nabadgelaysaa. wuxuu ku huwinayaa aamusku thawb al-wiqaar, dharka weyniduu ku huwinaya. wuxuu kaaga fillaanayaa kharashka mu'nat al-i'tidaar, kharashka ee raaligelintana uu kaaga fillaanaya. wadii erey xun hadduu kaa tago waxaa lagaa rabaa inaad raaligelin bixiso. haddaad ka aamustaba dee cid raaligelin kaa rabtaa ma jirto. waxa saasoo kale la yidhaahdaa waxa weeyaan waa aayatul fadli. wuxuu calaamadu yahay qofka fadligiisu calaamadu yahay. waa thamaratul caqli, waa midhaha caqliga laga goosto wanaagsan. waa zaynul cilmi, cilmiga quruxdiisa weeyi. waa cawnul xilmi, dulqaadka kaalmuu yahay. oo inaad dulqaad yeelato waxyaalaha kugu kaalmaynaya ayay ka mid tahay. falzamhu talzamuka asalaama. aamuska joogtee nabad baad ahaane.